Commandoska jacaylka ama ilaalada jacaylka waa urur ay aasaaseen group mutadawiciin oo hindiyaan ah kadib markay bateen arrimaha la xiriira dilka sharaf ilaalinta ah. Shaqada ururku waxa weeye inay ilaaliyaan dadka isjecel ee ay qoysaskooda dilka ugu hanjabeen kana caawiyaan in jacaylkooda guurku dhameeyaan. Hindiya waxaa ka jira dhaqamo iyo caadooyin adag waxayna dhigayaan sharciyo kaligeed qura ninka iyo qofta dumarka ay isku guursadaan. nasiib darro sharciyada ay dhigteen jacaylku ka mid maaha, laakiin waxaa ka mid ah diinta, dhaqanka iyo kalarka in la isku guursado. Dadka isjecel ee mujtamacaas ku dhex noolna waxaa lagu xukumaa jacaylkooda dhimasho. caadooyinka iyo dhaqanka hindiga ahna in jacayl la isku guursadaa ma ogola. taalidkeeda waxaa loo arkaa sheeko jacaylkaba inay tahay ceeb soo wajahday qoysaska lagu arkana. taasna ayaa keenta badanka in waalidka ilmihiisu nafta dhaafiyo. badanka gabdhaha ayaana arrintaas la kulma dhimashada ah iyadoo marmarsiyo looga dhigayo in sharafta qoyska la ilaalinayo. badanaaba guurka waxaa go'aamiya aabbayaasha oo kaliya. wiilka iyo gabadhuna xaq uma laha inay ka hadlaan guurkooda. haddii ay ku adkaystaan inay isguursadaan iyadoo qoysku isku diidan yahay, waxay la kulmaan hanjabaado ama dil. taas baana sababtay aasaaska ururkan mutadawiciinta. 2010 ayaa la aasaasay waxayna la bixeen Love Commandos oo micnaheedu yahay ilaalada jacaylka. waxaa mas'uul ka ah ururkan in lagu magacaabo hadii. ururka waxay caawiyaan mucaashaqiinka guurkooda uu xanibay kala sarreynta qoysaska ama diimaha iyo wixii la mid ah, si ay si sharci iyagu isugu guursadaan. waxayna ugu deeqaan meel aamin oo ay kaga dhuntaan dhibta. waxayna sidoo kale ka caawiyaan inay helaan shaqooyin si ay ugu dabaraan arrimahaas oo dhan. mutadawiciintu waxay ku fuliyaan si bilaash iyadoo ay ka tahay inay aaminsan yihiin qofku xaq u leeyahay inuu qofku jeclaado guursado. arrinta kale ee yaab kale baa waxay tahay in ururka uusan si sira uga shaqeyn dalka Hindiya ee si sharciya uga shaqeeyo. waxayna Hindiya uga shaqeeyaan si caadiya iyagoo leh akoono kuna leh bangiyada dawladda si qofkii raba inuu wax ku deeqo uu ugu diro. ururka intii uu shaqeynayay wuxuu caawiyay oo uu badbaadiyay dad tiro badan oo dhalinyaro ah oo hanjabaado dil ah kala kulmay qoysaskooda, kuwaasoo tiradoodu gaadhayso 6,000 oo xubin oo ka kala yimid deegaanada Hindiya ee kala duwan.